waddanka barnaamijka xilligaana waxaa ka mid ah gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe oo ku raad jooga xildhibaanadii ciyaal weerarada ahaa ee isku dayay in ay fowdo ka kiciyaan waqti golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ansixinayay xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre guddiga adag ee loo xil saaray oo waliba ku raad jooga xildhibaanadaasi ciyaal weerarada iyo go'aanka gudoomiyaha golaha shacabka ayaa barnaamijka kugu soo gudbin doonaa hadduu Allah idmo mucaaradka ka soo horjeeda dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa durbadiiba tabar yareeyay iyagoo ku soo koobmay muuqaal la soo jarjaray oo aan sal iyo raad midnaba aan lahayn madaxweynaha Uganda muuqaalka ay la cararayaan goormay dhacday qisada uu ka sheekeynayo madaxweynahaasi waxaan dul istaagi doonaa tabarxumada mucaaradka dawladda Xasan Sheekh Maxamuud iyo muuqaalka ay la soo shartageen oo aan anigu isweydiinayo ku dheydaba maxay ku dagaalami doonaan bilaha fooda lagu soo haya hadiiba ay hadda tabartoodu ay noqotay muuqaal aan sal iyo raad midnaba aan lahayn warbixin aan ku soo bandhigi doono tabarxumada mucaaradka ka soo horjeeda dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa barnaamijka ku iftiimi doona hadduu Allah idmo isbeddelka maamulka gobolka Banaadir oo ay dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ay imika agta saartay ayaa doonaya in aan ummadda u iftiimiyo sidee isbeddel loogu samayn doonaa maamulka gobolka Banaadir intee in la eg bay siyaasiyiintu ay wadaan hadda in ay ku bedelaan maamulkii uu ka tagay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo noqday maamul fadhiid ah oo kaliya wax lagu shubto mar alla iyo markii la doonana laga soo dhaxalo hogaaminayo Cumar Filish isha gareen hadba sidaad u taqaanaan warbixinta isbeddelka gobolka Banaadir ayaan ka hadli doonaa sidoo kale qodobada ku daawan doonto barnaamijka waxaa qayb ka noqonaya siyaasadda cusub ee dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba maamul goboleedyada oo aan iftiimi doono waxaa la yiri damaca Itoobiya lama dhayarsan karo Itoobiya gobolada Soomaaliya kamid ay la wareegi doontaa dagaal iyo duulaan bay soo wadaa haddii aan dawladda Xasan Sheekh Maxamuud aysan u fulin damaca ay leedahay absidaasi ma laga qabi karaa Itoobiya waqtiga wadaas ma leedahay ay gobolada dalka Soomaaliya kula wareegto Itoobiya mise waxaa jira dad buubuurinaya oo magaca Soomaali ka ah warbixin aan uga hadli doono arrintaas barnaamijka kugu soo gudbin doona soo dhawaada waxaan arkayaa tabar la'aan ka muuqata mucaaradka ka soo horjeeda dawladda Xasan Sheekh Maxamuud waxay keeneen qiso uu madaxweynaha Uganda ka sheekeeyay waqtiga wafdiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay tageen dalka Uganda waxa uu qisadaasi ugu talagalay in uu madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uga warramo taariikhda Uganda wixii ka dambeeyay burburkii Soomaaliya gurmadkii ciidanka Uganda ay Soomaaliya u tageen iyagoo ka tirsan midowga Afrika ama AMISOM iyo waliba wuxuu arkay waqti uu tagay Soomaaliya 12 sano ka hor qisada uu madaxweynaha Uganda ka sheekeynayo oo CBB-du intay soo jarjareen ummadda Soomaaliyeed loo riibadeen waa qiso mar uu tagay Muqdisho 12 November 2010 waqtigaas dalka waxaa hogaaminaya Shariif Sheekh Axmed ra'iisul wasaaraha dalka wuxuu ahaa Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waaga gudoomiyaha golaha shacabka wuxuu ahaa Shariif Xasan Sheekh Aadan wuxuu yiri Muqdisho tagay waqti uu Shariif hogaaminayay dalka waxaan arkay buu yiri qaabka dawladda Soomaaliya waqtigaas uu Shariif u hogaaminayay qaabka mushaaraadka ciidanka qaabka mushaaraadka shaqaalaha dawladda madaxweynaha Uganda marka qisadaas ayuu ka sheekeeyay asayeeshee mucaaradkii dawladda Xasan Sheekh Maxamuud oo tabar la'aan ay ka muuqato ayaa muuqaalkaasi soo jarjaray kadibna ka dhigay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xafidullah mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu mushaaraadka ciidanka weydiistay madaxweynaha Uganda isla markiiba waxaa ka hortagay shacab isxilqaamay oo keenay muuqaalkaasi oo dhammaystiran kadibna dadka Soomaaliyeed hor keenay in arrinta madaxweynaha Uganda uu ka hadlayo aynan ahayn arrin hadda jirto oo ay tahay arrin dhacday November 2010 dadka indheeya siyaasadda Soomaaliya ayaa waxa ay leeyihiin tabarxumada ka muuqata mucaaradka dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maxay noqon doontaa bilaha fooda lagu soo haya hadiiba ay hadda naf bideen muuqaal la jarjaro bilaha fooda lagu soo hayana maxay ku dagaalami doonaan awood la'aanta ka muuqata dawladda Xasan Sheekh Maxamuud mucaaradka ka soo horjeeda waxay tusaale u tahay shacabku inay arkayaan waqtigan inaysan jirin boog lagu aflagaadeeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladdiisaba wax cilada inaysan muuqan ayay dadku ka arki karaan hadiiba ay mucaaradku waayeen qiil ay ku weeraraan dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud shacabka Soomaaliyeed ayaa kalsooni ka sii qaadaya maadaama damaca mucaaradkuba uu noqday video fake ah oo aan waxba ka jirin waxaan ula jeedaa muuqaal mar haddii la soo jarjaro wuxuu noqonayaa micno kale
editing lagu dagaalamo ama muuqaal la jarjaro oo lagu dagaalamo 2022 waxay tusaale u tahay inaysan haysan awood ay ku sii dagaalamaan sanadaha fooda lagu soo haya waxay ku soo kordha tabarlacaanta mucaaradka ka soo horjeeda dowladda Xasan Sheekh Maxamuud waxaan kugu soo gudbi doonaa barnaamijyada soo socda hadduu Allah idmo goordhow waxaan soo gudbi doonaa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo guddi u xil saaray in ay baaris ku sameeyaan xildhibaanadii ciyaal weerada ahaa ee isku dayay inay qasaan waqti la ansixinayay xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre intaan warbixinta gudoomiyaha golaha shacabka iyo waliba dabagalka xildhibaanada ciyaal weerada u gudagelin isbedelka gobolka Banaadir goordhow waxaa la gudageli doonaa maamulka gobolka Banaadir inuu yeesho hoggaan ka tayo badan hoggaanka hadda talada gobolka haya waxaa hogaaminaya Isha Gareen oo ugu dambeyn shalay uu ka soo dhaxlay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo kadib markii uu shacabka la hor yimid ciyaal weerada badbaado qaran ay ka dhasheen taasoo dadka Soomaaliyeed tusisay in awoodii Cumar Finish ay noqotay in uu waqtigaaba uu madaxweyne u yahay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo isbedelka hadda Cumar Finish iyo tiibkiisuba wuxuu dawo u yahay gobolka Banaadir oo amni darrada ay ka jirto isla markaana maamulka gobolka uu noqon karin waqtigan mid sii hogaamiya عاصمة الصومالية المقدشو سياسيينتا كل دول مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية أي وحا أي شيئا إنه مدحوينه دياريي قدوميها قبل كبنادر هنادوقا مقدشو كحيجينو intaba ay raali ka noqon doonaan siyaasiyiinta iyo shacabka gobolka Banaadir isbedelkan ayaa la doonayaa in lagu hirgeliyo in maamulka gobolka Banaadir uu yeesho maqaam iyo matalaad caasimadu ay yeelan doonto gudoomiyahaasna uu noqonayo mid ku siisima ah ilaa caasimadu ay doorato hoggaan maamul iyo waliba dhisnaan xuquuq ku leh dowladda federaalka Soomaaliya isbedelka cusub ee soo socda jiritaanka iyo waliba rajada la qabo intaba waxaan ku iftiimi doonaa barnaamijyada soo socda hadduu Allah idmo waxaan arkay qof Soomaali ah oo noo amaanaya awood Itoobiya aynan lahayn waa nasiib darro weyn inaan arko qof Soomaaliyeed oo ku faraxsan xadgudubyada Itoobiya ay sameynayso siyaasaddu hadday ka gasho meeshaasi foolxumada ah waxaa dhalan karta in hadhow jiritaankaagii iyo waliba abtirsimadaadiiba uu ku beermo mid runtii ama ay noqoto mid aan la isku sii hadlay karin adigoo Soomaali ah maanta inaad Itoobiya amaanto oo waliba Itoobiyada kugu xadgudbaysa asii amaanto dadnimo ma aha dadka wararka fidiya xaq uma aha in waqtigan Itoobiya ay buubunayaan sabab kale ma aha waqtiga kaliya ee munaasabka ah qofka baahinaya wararka waa waqtiga xadgudubka lagu sameeyo dhulkiisa munaasab ma aha in uu adawga la saftay waa in uu geeyigiisa ciidiisa iyo dowladnimadiisa ilaaliya sida darteed marnaba aqbali maayo inaan buubuniyo adawga Soomaaliya Itoobiya damaceedu muxuu yahay Itoobiya kaliya waxay rajaynaysaa afartii dekadood ee uu Farmaajo u ballan qaaday in ay xoog uga qaataan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ma waxaan amaanaa qof doonaya inuu dekedayda boobo ma waxaan amaanaa qof handadaya dowladnimadeeda ma waxaan amaanaa qof ku dulqaya dhulkii aan aniga ku abtirsanayay aqligayga damiirtayda iyo dadnimadayduba ina siinaysee awoodda Itoobiya gobolada dalka ma kula wareegi kartaa maya hub ayay soo siin kartaa kaliya maamulada ka soo horjeeda ama siyaasad ahaan aan ku qanacsanayn dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dowladna ciidan oo Itoobiyaan oo gobolada la wareega ma arki doontaa waxaad arki doontaan in ay qaabkii hogaamiye kooxeedyada ay hubka u soo sii jireen ay isku dayaan inay hub soo siiyaan maamul goboleedyada dalka asaga sheegtaasi ma sii socon kartaa maya nidaamka iyo sharciga Afrika ka jira ma ogolaan karaa maya kaliya waa handadaad la doonayo in dowladda lagu cabsigeliyo haddii shacabka Soomaaliyeed ay cabsigelinta Itoobiya ay qaataan madaxweynuhu wuxuu ku qasbanaanayaa inuu shacabkiisa raaco laakiin haddaan anagu dhiirigelin u noqono madaxweynaha jamhuuriyadda ma helayno waxaynu hanan karnaa ama aynu hiigsan karnaa dowladnimo awood leh iyo jiritaanka qarankeena oo kor u kaca haddaad tahay Soomaali dhaba ogow maanta damaca Itoobiya adigoo qatar kugu yahay waxaan bogaadinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud weli kalsooni ku qaba awoodda Soomaalinimo iyo jiritaanka dowladda wuxuuna madaxweynuhu ku adkaystay marnaba damaca Itoobiya inay noqon karin mid asaga uu si sahlan ku qaato waxaan garab istaagayaa dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo doonaysa in ay Itoobiya tusto Soomaaliya inay nooshahay wixii ku soo kordhana waxaan kugu soo gudbin doonaa barnaamijyada soo socda hadduu Allah idmo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa gudub xil saaray xildhibaanadii ciyaal weerada ahaa ee isku dayay in ay foodo ka kiciyaan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya
guddiga culus ee loo xil saaray ayaa waxaa hogaaminaya rag ku xeel dheer baarista iyo weliba ogaanshaha waxaana la hayaa muuqaalo caddayn u ah qaar ka mid a xildhibaanadii ciyaal weerada oo caag intay qaateen isku dayaya inay ku dhuftaan guddoomiyaha golaha shacabka waa maqal iyo muuqaal xildhibaanada waxaa laga hayaa dukumentiyo toos ah weerar gacan ah markuu qaado xildhibaankana wuxuu mutaysanayo waa in xasaarada laga qaadaa kadibna sharciga la horkeena waxaa ceeb iyo lama filaan ku noqonaya taariikhda baarlamanka federaalka soomaaliya in farmaajo aynu ka dhaxalnay xildhibaano ciyaal weera ah haddaba guddoomiyaha golaha shacabka ayaa ku raad joogeen bal aynu sugno natiijada ka soo baxaysa muuqaalada la horkeeni doono golaha shacabka oo caddaynaya xildhibaano ka mid ah ciyaal weerada oo weeraraya guddoomiyaha golaha shacabka baarlamanka federaalka soomaaliya wixii kusoo kordhaysa ku hay janalka youtube-ka aftahan production iyo weliba facebooka pageka cabdilaahi balwaan intaynu barnaamijka